قال ولا دي waxaa laga soo bixinayaa guryaha dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ahaa shakhsiyaadkii hogaaminayay dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka Masagawaay. Waxaan kula wadaagayaa xogta dagaalka Masagawaay ee aadan ka warhaynin iyo muuqaalo laga soo duubay Al-Shabaab oo guryaha loogu daadanayo banaankan loo soo saarayo. Waxaa gacanta lagu dhigay dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo qorsheynayay inay dagaal ku soo qaadaan mar kale deegaanka Masagawaay oo maalmo ka hor dagaal xooggan oo ku dhex maray iyaga iyo ciidanka dowladda. Dagaalkan ayaa noqday mid lagu jabay waxaana guryahooda lagu galay goobihii ay ka soo abaabulayeen. Haddaba daawada waxaan kula wadaagayaa xogta dagaalkii ugu adkaa oo saaka dhacay iyo ciidamada dowladda oo gacanta ku soo dhigay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab markii ay ogaadeen inta aan weerarka la soo qaadin ka hor. Sidee ayay xogta ku heleen ciidanka dowladda? Qaabkee ayaa loo qabtay dagaalamayaashan intii baxsatay iyo sidoo kale qaybo ka mid ah oo meydadkooda ay yaalaan halka ay wax ka dhaceen. Daawada xogta oo dhammaystiran inta aanan kula wadaagin haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato janaalkeena Haldoor Media fadlan nagu soo biir oo subscribe dhoo furo gambalka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. Like sar muuqaalka share garee lana wadaag saaxiibadaada mahadsanid. Dagaal xooggan ayaa saaka ka dhacay deegaanka Masagawaay oo ay ururka Al-Shabaab isku dayeen in mar kale ay u soo hanqal taagaan qabsashadiisa kadib dagaal 2 maalin ka hor halkaasi ka dhacay oo ciidanka dowladdu ay fashiliyeen sidoo kalena labada dhinac ay wax uga dhinteen. Maalmo ka hor dagaal lagu hoobtay ayaa ka dhacay Buulamareer oo ay ururka Al-Shabaab haatan gacanta ku hayaan. Waxa ayna dowladda Uganda shaacisay in halkaasi looga dilay wax ka badan 137 askari. Ururka Al-Shabaab oo sanadkii tagay ilaa haatan xarumaha dowladda weerar ku qaadayay sidoo kalena ka qabsaday xarumihii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda ayaa mar kale isku dayaya inay u gudbaan dhinaca ciidamada ADMIS oo ah kuwa aad u tababaran. Laakiin waxaa u suura gashay in ciidamadii Uganda ee ka tirsanaa ADMIS ay galaan xeradooda sidoo kalena xasuuq xooggan u geystaan gawaari iyo hubna ay ka qabsadaan sidoo kale dad nool ay gacanta uga dhigaan. Maalin kadib waxay isku dayeen inay soo weeraraan deegaanka Masagawaay laakiin ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa ku sugan Eritrea ayaa ku guuleystay inay helaan xogta kooxda Al-Shabaab ka tirsan ee soo weeraray deegaanka. Waxaa loo diyaariyay in markaasi ciidanka dowladdu ay u diyaar garoobaan dagaalka kooxda Al-Shabaabna nolol lagu qabto. Dagaal xooggan oo ciidanka dowladdu u diyaarsanaayeen ayaa halkaasi ka dhacay waana lagu kala baxay. Al-Shabaabna dib ayay u laafteen iyaga oo dhaawacyadooda xitaa ka cararay. Labada dhinacba khasaare xooggan ayay isu geysteen. Laakiin tii mid ka daran ayaa saaka dhacday kadib markii shalay galab ciidamada dowladdu ay heleen xog sheegaysa in Al-Shabaab ay ku soo duulayaan deegaanka. Waxaana xogtan siiyay dad reer miyi ah oo arkay ilaalada iyo kormeerka kooxda Al-Shabaab. Maadaama Al-Shabaab ay filanayeen ciidamada Eritrea ee maalmo ka hor weeraray inay iskala dhiganayaan iyagoo u maleynaya in dib loo soo weerari doonin bilaha soo socda maadaama aan Al-Shabaab lagu aqoonin in goobta ay soo weerarto ay maalmo kadib dib ugu soo laabato. Habacsanaanta ciidamada kadib iyo sidoo kale taliyaha ciidanka lugta oo isna eeriyada ku sugnaa xogta ay heleen ciidamada waxaa loo dhigay shax kooxda Al-Shabaab waxaana la sameeyay baaris dheer si loo ogaado halka ay ka soo duulaan tagayaan iyo goobaha ay soo marayaan iyo sidoo kale shakhsiyaadka magaalada u jooga. Isla markiiba waxaa la weeraray dhowr shakhsi oo ku sugan magaalada oo laga filanayay inay la shaqeynayaan Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale ay ciidamadu degeen dhowr wadooyin oo laga filanayay in kooxda Al-Shabaab markii ay soo gasho magaalada ay ku bixi doonaan waxaana loo furay wadooyinkii ay sheegeen raggii gacanta lagu dhigay inay soo mari karaan Al-Shabaab. Waxay dowladdu ku guuleysatay in nimankii ay soo qabatay ay noqdaan kuwa Al-Shabaab ah sidoo kalena ay ahaayeenba shakhsiyaadka hogaaminaya dagaalka. Waxaa lagu qasbay inay mariyaan wadooyinka ay dowladdu rabto kooxda soo galaysa ee weerarka ah.
waxaa sidoo kale jiray ciidamo aan hubaysnayn oo ku sugan magaalada oo la rabay inay dagaal galaan kadib weerarka al-shabaab. nasiib wanaag waxay dowladdu ku guuleysatay sida aan xoogaha ku helayno in al-shabaab la soo geliyo caloosha oo ay gudaha magaalada u soo galaan waddo walbaba laga xiro. saaka iyadoo qarax iyo waxba aan dhicin ayaa 3 gaari oo wateen lagu dhuftay qoriga 7ka ama RPG-ga halka ayaana lagu gubay, waxaana gacanta lagu dhigay tiro badan oo ka tirsan shabaab. waxaa sidoo kale la toogtay kuwo yar oo isku dayay inay dagaalamaan. 2 askari ayaa la sheegay in ciidamada dowladda ay ka geeriyootay, waxaana saacadaha soo socda la filayaa in la soo bandhigo dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab ee la qabtay iyo sidoo kale meydadkooda. waxaa jira muuqaallo hordhac ah oo aan helnay sida aad muuqaalka ka daawanaysaan, kuwaasi oo sheegaya ama ku tusinaya ciidamada dowladda oo wadada isku dheerarinaya iyo sidoo kale iyagoo gudaha kala soo baxaya dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab oo dagaalka hogaaminayay. haddaba dagaalkan ayaa noqday mid kaartidiisa inaba uusan caadi ahayn, waxaana maskaxdoodu isugu geeyay saraakiil badan oo ka tirsan ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa xoogga dalka, ciidanka Uganda, ciidanka lagu soo tababaray Aandhehe Eritrea ayaana dagaalkan si ay inaba caadi ahayn uga qayb qaatay, iyaga oo garabka helayay ciidamada kala duwan ee dowladda sida kuwa militariga ee ku tababartay dalka dibadiisa iyo sidoo kale ciidamada macawisleyda ee deegaanka. shabaab waxaa gaara saakay jabkii ugu xooganaa aan horay taariikhda u gaarin, iyadoo dadkii soo weerartay xitaa hal qof uusan ka badbaadin oo dhammaan la dilay. haddaba shakhsiyaadka saaka geeriyooday waxaa la sheegay kaamirmaankoodii, darawaladii gawaarida, saraakiisha hogaaminaysa dagaalka, dhammaan in markaasi gacanta lagu dhigay, qaarkoodna la dilay, hub laga furtay, waxa ay haysteen xitaa uusan hal askari oo ka mid ah xitaa isagoo cararo safakan. waxaa kale oo lagu guuleystay kooxihii sirdoonka iyo kuwii ku sugnaa deegaanka Masgawaay ee al-shabaab deegaanka markaasi ku hogaaminayay in iyagana lagu guuleystay in gacanta ay ku dhigaan ciidanka dowladda. dhinaca kale shalay waxaa jiray in deegaano kale ay isku dayaan inay ku weeraraan markaasi ciidamada AMISOM, balse markaasi dagaalka sidii la rabay uusan u dhicin. waxay ciidanka dowladda markaan feejignaan weyn ku sameynayaan dagaalada ka dhanka ah al-shabaab. bilihii lasoo dhaafay waxaa dhacaysay in ciidanka dowladda markii al-shabaab soo weeraraan ay farxad sameeyaan oo markaasi aysan diriirin, la galo meesha ay joogeen, hubkii laga furto, ciidamo qaar laga qabto oo si xun loo xasuuqo. balse al-shabaab ayaa saaka 42 nin laga dilay, 22 laga qabtay, yacni sirdoonkoodiina gacanta lagu dhigay, xubnihii muhiimka u ahaa ee dagaalkan hogaaminayana lagu guuleystay in gacanta lagu dhigo. haddaba wixii dhacdo ah ee ka soo kordha ayaan daawada halkan kugula soo wadaagaynaa iyo muuqaalada ugu horeeya ee laga helo dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka Masgawaay ee gobolka Galgaduud. waa ku mahadsan daawashada muuqaalkan. haddii ay tahay markii aad soo booqato channelkeena Haldor Media, fadlan ugu soo biro subscribe oo furo gambaleel si aad noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. mahadsanid.